بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ملك جوجتان بإله سبحانه وتعالى دكوا ما يلو عدي دبندبك الله كقادو عدي دن لا الله وفيه انت باهن الله ديقو انت بوقتا الله بوكسيو انت دمت الله نحريستو والدينتين الله نحريستو انغنا الله نوغا دبا نحريستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo jahawareer siyaasadeed ayay gashay ummadda Soomaaliyeed runtiina walwalka dadka aqoon-yahanka iyo waxgaradka iyo wadaniga ahaya mar uu maanta ka weeyahay ma soo marin in dhawaale nin madax ah oo dawladda Soomaaliya ka tirsan hadalkaas kelmadaas baan ka xigtay maanta maalin aan ka walwal badanahay ma jirto waxa sabab u ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo aan lahayn siyaasad fadhida siyaasadiisa arrimaha dibaddu waa in shambles wax la garan karo ma haysto khubaro ku xeel dheer arrimaha dibadda oo la tashado waxa uu noqday nin go'doon ku ah qoyskiisa iyo koox yar oo aan isaga waxba dhaamin waxaan rabaa inaan laba kalmadood ka yiraahdo heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku galeen Ankara heshiiskaas December 13keedii laba qodob oo aan soo dhaweeyay oo muhiim ah ku jiray qodob wuxuu ahaa meesha waa commercial badal la siinayo qodobka labaadna dawladda federaalka ah baanu la xaajeysanayna inagu ixtiraamayna madaxbanaanida Soomaaliya laakiin kelmad baa laga tuuray aan dib ka sheegay political independence baa ka muhiimsan territorial integrity labada qodob ugu muhiimsan waxa weeye territorial integrity iyo political independence qasab ma inaan anagu midaysannahay oo isku fikirnahay oo israacsannahay qasab ma dawladaha yaryar oo la sameeyayna waxa loogu talagalay in layna ka dhex kaluumaysto si layna ka dhex kaluumaystana 10 madax 5 madaxweyne 6 madaxweyne wadan la adduunka ma jiro madaxweynayaal in la sameeyo oo wax wadamo weeg shibu duwaylaad qadiyadii lagu burburiyay Andalus baanu ku socona oo ku go'go'no qabaa'il iyo qabiil iyagoo loo kala dajiyay Xasan Sheekh Maxamuud markuu ku guul daraystay arrimihii gudaha ayuu haddana wuxuu damcay inuu dhibaatada gudaha kaga timi gaar ahaan dagaalkii uu ku fashilmo ceebta ahaa oo fadeexada ahaa ee meesha la yiraahdo uu la aaday Jubbaland buu wuxuu damcay inuu iska sii jeediyo indhaha ummadda iyo caalamkaba markaasuu wuxuu ku orday heshiis uu sanaad uga fiirsan kelmadda politically waxa looga reebay intentional si ku talagal ah baa looga reebay waxaan maalintii sheegay inay muhiim tahay daruurina tahay madaxweynuhu inuu xayr gareeyo ama soo qabsado looyaro ku xeel dheer xeerarka badaha in la helo dad khubaro ah oo Soomaaliyeed oo aqoon-yahan oo la tababaro oo 20-30 days seminar qaata akhriya shuruucda caalamiga ah oo dhan akhriya clause xeerarkeeda oo dhan way ku qoran tahay wadamada oo dhan waxa ku qoran territorial integrity sovereignty macna male territorial integrity iyo waxa yaani rasmi ah political independence haddaanu siyaasadda isku hayno gudaha iyaga cid ay wax ka khuseeyaan oo dibadda ah ma jiraan anaga noo taal marka arintaas dad fahmi kara inuu qaato hadda waxa soo baxday madaxweynuhu heshiis uu la galay October laba wadanka Eritrea iyo Masar inay labaduba walwal ka muujiyeen heshiiska ay la galeen labada wadan Soomaaliya waxay ahayd haddii Itoobiya soo weerarto Soomaaliya oo badeeda ay qabsato in ay dagaalka la galayaan niigna u shubayaan Soomaaliya qof commitment inta leeg oo defense backed ku siiyay oo ku saxiixay oo ku ballan qaaday inuu la dirirayo Itoobiya waa dagaal ogow hadalkaasi waa threat waxa uu jaraya xiriirka ay leeyihiin Itoobiya haduuba jiraba uu jaraya adiga darta ay u sameeyeen soo sax ma aha hadaad siyaasad wax ka garanaysid in yarba ha ahaatee inaad kala tashato heshiiska aad la galaysid wadankii ay lahayn waa kaaga hilinayna soo inay wax ka ogaadaan maaha waxay ku qanci karaan miiska inaad saartid Soomaaliya Soomaaliya difaaceedii in dad kaaga roonaado oo kaaga walwal roonaado soo ceeb maaha soo fadeexad maaha madaxweynihii soo ma aha ninka ay dadka oo dhan walwal ka qabaan in dal loogu tagi doono Soomaaliya la yiraahdo
madaxweynuhu hadduusan mashruuc soo qaadan Soomaaliya lagu burburinayo hadda waa nin sidii ay rabeen u shaqeynaya isagoo aan isogeyn useful idiot waxa la yiraahdo waa qof faa'iido miirana laakiin aan isogeyn inuu faa'iido miiran u yahay cadowgiisa Eritrea nin la taliyo waa wasaaradda arrimaha dibadda oo la yiraahdo Idris Abdul Qadir wuxuu yiri Eritrea waxay ka fiirsanaysaa xiriirka ay Soomaaliya la leedahay waxa dhici karta in xiriirku jarno madaxweynuhu waa ka sii daayay Eritrea fadhiya maanta Masar sidoo kale waxay walwal ka muujisay baddaas inay Ethiopia cagaha dhigato Idris wuxuu leeyahay Ethiopia waa naqaana intentionkeeda iyo ujeedadeeda uma socoto commercial dawladdii tan ka horeysay Soomaaliya ee farmaajo madaxda ka ahaa waxyaabihii dooda dheer kadib loo ballan qaaday waxa kamid ahaa meel commercial ah oo dekedaan isla dhisanayna annaga kula dhisanayna dekedeedaan dhisanayna annaga maamulayna adigana waxaan ku siinaynaa commercial deals ka fiican midka aad hadda haysatid ma uu rabo danna kama gelin qadar baa rabtay inay dhisto hobyo oo ay ku bixiso 600 oo intaasoo bilyan oo dollar ku dhisto si uu diiday commitmentigii 50 sano inuu isticmaalaya ah inuu saxiixo hayr uma socdo mana rabo waxay Idris wuxuu leeyahay Ethiopia waa naqaan commercial uma socoto wuxuu ka diiday Afwerki oo yiri waxaan ku siinayaa xeebta dekedeeda ku siinayaa iyada isticmaal Djibouti waa haystaa Djibouti waxay u ballan qaado kale deked kale oo ay isticmaasho iyadoo ay maamulato inay siiso waxa soo uma socdo xagee u socdaa caalamku Ethiopia kala tagta ma rabo Ethiopia kala tagta uga daran Soomaaliya la googoosto awal ba iyaga jarjaray caalamku Ethiopia say isu haysan karto waase bad hadii la helo oo Soomaaliya badeeda la qabsado oo la qaato Ethiopia waa midoobaysa isqabqabsiga ka dhamaanaya wada jirkeeda si soconaya caalamku taasoo raba Mareykanka iyo kulligood involved bikuyi waxa marka tala madaxweynaha Eritrea isku sii daayay si uu soo maslaxo u soo qaboojiyo wasiirka arrimaha dibadda Masar baa loo diray inuu soo qaboojiyo Ethiopia isbuucan gudihiisa ku laysay ciidamadii Soomaaliyeed gardarro magaalada Doolow maxaa yeelay Xasan baa wuxuu abaabulayay fadeexad labaad inay kaga dhacdo dagaal kale oo uu ka abaabulo gobolka Gedo kastoo reer Gedo ay soo jeedaan oo indhaha kala hayaan aysan ku dagmi doonin dadka la soo dirayo horgalada aysan ku dagmi doonin aragtiyaha jiibkaana aysan qaadan doonin dagaal uu Xasan galiyay aysan yeeli doonin Xasan wuxuu u diray Ethiopia wafdi iyadoo laysay warqadna ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ay ku cambaaraynayso Ethiopia dagaalka ay u geysatay iyo dilka ay u geystay ciidamada Soomaaliyeed ayuu haddana wafdi u diray wafdiga aan la yaabay laba nin buu u diray baasaboorro diblomaat ah oo Ethiopian ay haystaan waa nin jaajuus ah oo kalsoonida ay ku qabto Ethiopia darteed ay baasaboor diblomaat u siisay caalamku wuxuu ku mari karaa inuu yahay diplomatic matalaya dalka Ethiopia qofka noocaas ah baa loo diray Sambalool Sheikh iyo Ali Balcad baa loo diray muxuu arkayaa hadalka uu yiri waad aragteen Abiy Ahmed oo ah Xasan Sheikh Maxamuud waxna iskama celin karo weerarna ma qaadi karo wuxuu arkayaa inaadan macno lahayn war haddaad saa u dhaqantid dal iyo dad midna lagugu imaan maayo Xasanow I believe inay tahay waqtigii aad resign garayn lahayd haddii aadan waxaan bedeli karin haddii aadan khubaro la tashan karin haddii aadan aqoonyahan urursan karin haddii aadan dalka iyo dadka u fakari karin adeerow dadka iyo dalku yay gacantaada ku burburin dawladdii lagu dhiibay oo sharafta iyo karaamada lahayd maxaad ka haysaa maanta ciidamadaadii baa Ethiopian laynayaa wafdi baa u diraysaa heshiis baan la walaalaan nahay shalay waxaana tiri cadow aan Ethiopia ahayn ma lihin cadowgeena koowaad weeye waad ku celcelisay oo ku celcelisay waxaad shardi ka dhigtay inay ka noqdaan xadgudubkii ay ku xadgudbeen madax banaanida iyo qarnimada Soomaaliyeed iyo xornimadeeda siyaasadeed goormay ka noqdeen xagee bay kaga noqdeen sidee uga noqdeen maxaa iska kaa bedelay maalinba meel baa u ordaysaa laba farasoo midba jiha u socdo ninka raba inuu wada fuulo labadaba uu ka dhacayaa saas dawladnimo maaha siyaasadna maaha ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay caalamku wuxuu ilaalinayaa juqraafiye kale
juqraafiga ka soo socda hadda Middle East mid la mid ah rabaa inuu ka soo baxo East Africa Ethiopia oo xeebta haysata waxay khatar ku tahay jiritaanka Masar waxay khatar ku tahay jiritaanka Eritrea sida waxa ay yiri labada wadan therefore way la dagaalamayaan inaguna waxaan noqonaynaa malcabka siyaasadeed iyo goobta dagaalka maxaa la dhihi jiray kala reebtii waan noqonaynaa lagu dareeri lahaa waxaasi xasan oo siyaasad ma ahe walaalow sida isu dhaan oo dalkan sida u dhaan oo dadkan sida u dhaan oo hadaadan waxaan wadi karin adiga caruurtaadu dawladnimo ma maamuli kartaane adiga jihaana isgarab ordinine adaro dadka khubarada la tasho oo dadka aqoonta la tasho oo hadaadan yeelayn adaro resign garee oo iskaga tag umadan meesha ay joogto meel ka fog hageyn dal ma hayno ciidan ma hayno siyaasad ma hayno amni ma hayno sharaf iyo karaama ma hayno caalamkii oo dhan waxaanu noqonay malcab siyaasadeed meel dacaayadu ay qabato oo la iskaga sheekeeyo ani waxaanu wax macquula ma ahe madaxweyne sida isu dhaan intaasaan oranaya ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay la ducaysto waxaan la yaabay culimo tiro badan baa magaaladan Nairobi isugu timi oo 50 qof gaarayso Soomaaliya dad aan u malayn ma ciidana inay ka maqnay wax bayaan oo ka soo baxay arrimaha ku saabsan ma arag Soomaalidu ma quusatay marka haday culimadoodii quusteen oo aamuseen oo afka xirteen yaa u hadlaya yay rajaynayaan inay u hadlaan oo wax ka sugayaan isxasuusin wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin وينفعيسا isxasuusin laakiin ma inta kaliya masiirka ummadda ayaa khatar ku jira ummadan culima badbaadin jirtay culimooy dalkan hal la badbaadiyo sida uu hadda ku socdo ilaahay uun baa garanaya xasan in loogu imaan doono sanad kadib sidaan hadda uu ku socdo hadduu ku socdo sanad kadib speedkaas maxaa dhici doona February aakhirkeeda heshiiska uu saxiixi doono xasan sheekh muxuu noqon doona walwal idinkuma haysan ya culimooy hadday sayid ku hayso maxaa u aamusantiin oo hadlaadii dalkaan idinka leh marti uma ahidin xasan idinkama leh inta u istaagtaan ka dhacsada kaligiis ma aha konton jaajuus baasa u yaacaya oo kulligood baasaboor ajnabi ah wata oo jawaasiis oo qoran kuwa la yaqaan macruufa kuwa hadda aan ka hadlayo diplomat passport wata passport waa la qaadan karaa Ethiopiana laakiin diplomat passport lama qaadan karo haddaan dawladda ka tirsanayn oo aan lagu aaminin oo aan diplomatic u ahayn qof u maqan iyaga oo caalamka u jira oo siyaasadooda u adeega hadaan ahayn laguma siin karo marka arrimaha noocaasa dadka aqoon-yahanka iyo culimadu inay ka aamusaan waa nasiib darro taariikhdaas waad galaysaan mugdiga ah xasan maalintuu dalkiina burburinayay xagee ku maqnayd baa lagu oranaya kunna mustadcafiina fil ardi miyaa oran doontaan arrintaasna waa ku darayaa kelmadda culimada iyo aqoon-yahanku ha hadleen oo ha istaageen intaasaan oranaya billahi tawfiiq